السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena aan soo gudbinay. Haddaba qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid ah Trump oo la sheegay inuu ka baaraan degayo oo uu si dhaba uga fakarayo qorshe ay u soo gudbisay wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas oo ku saabsan in weerarka koowaadba Mareykanku ay beegsadaan Ayatullaahiga iyo wiilkiisa si khalkhal uga dhaco Iran nidaamkana uu meesha uga baxo. Haddaba qorshahaasu ma amri doona Trump maxaase ka dhalan doona wixii laga qoray waan idin haya. Waxa sidoo kale aan barnaamijkeedii kugu soo gudbin doona wasiirada arrimaha dibadda ee Qatar iyo Iran oo ka wada hadlay xiisadda ka jirta gobolka Bariga Dhexe iyo sidii looga baaqsan lahaa dagaal inuu ka dhaco halkaas. Mareykanka oo qodob cusub doonaya in lagu daro wada hadallada dhex mari doona Mareykanka iyo Iran oo ku saabsan nuclearka iyo uraniumka Iran. qaybta ugu dambeysana waxaan war idinkaga hayaa masjidka barakaysan ee Al-Aqsa iyo xalay cishihii iyo salaadii taraawiix inta dada ay ku tukatay iyo Israa'iil iyo iyagu waxa kala qabsaday tirada arrimaha dibadda ee Qatar iyo Iran oo ka wada hadlay sidii xaaladda gobolka loo qaboojin lahaa loogana baaqsan lahaa dagaal inuu ka dhaco gobolka oo ay sheegeen inaan cidina dano ugu jirin dagaal halka ka qarxa. Haddaba wararkaas waxa lagu daabacay jiradda la yiraahdo Al-Qudus waxay leedahay wada hadallo ayaa dhex maray Iran iyo Qatar kaasoo ku saabsan in la xoojiyo wada hadallada u dhaxeeya Washington iyo Tehran. Haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi iyo ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa sabtida maanta waxay yeesheen wada hadallo dhanka telefoonka ah iyagoo wada hadalladooda diiradda ku saarayay xiisadaha ka jira gobolka sidii looga hortagi lahaa dagaal inuu halka ka dhaco iyo sidii loo sii xoojin lahaa fursadna loo siin lahaa wada hadallada u socda Tehran iyo Washington. marka dawladii gobolka cabsi haysa kulligood wadnaha farta ku haya Qatar horta ma ugu sii jirto. Qatar waxay taagantaa warnimay oo gantaalihiina nagu soo aadinin. Iran waxay leedahay annaga saldhigga meeshan ku yaala Al-Udeyd la yiraahdo jugta ka gelideyna Mareykanka meesha joog Mareykankana boqolaal askartiisa saldhigga uu kala cararay waataan xal idin sheegay. marka Qatar markii horena dagaalkii 12 maalmood saldhiggaas Mareykanka waa la weeraray Iran way weerartay. marka hadda xaaladdu marka dawladaha aad wadnaha farta ugu haya ku jirta Qatar. Iran waxay leedahay laakiin adiko aniga ma idin soo aadaayay Mareykan hadduu soo aado saldhigga uu degan yahay aan garaacaya inuu baasha saldhig kaliya kuma ekaanayse gantaalahan waa wiifayaan mida inta iska soo gudbo amiirka hadduu u tago soo wareer ma meesha wareera ka dhacay war sidee wax u jiraan jirta. marka xaaladdu halkaas mare dawladaha gobolka oo dhan cabsida u haysa haddii dagaal dhaco meeshii ay mari lahaayeen oo badii dhana xirmaysa wixii ay dibadda ugu imaanayeen iyo wixii ay dhoofinayeen khaliijka oo dhan Hormuz ay baashu ka xirmi doontaa. marka waa la dareemayaa inaan cidina dagaal halka ka dhaca uusan dan ugu jirin laakiin Mareykanka nin waxa hogaaminaya Al-Sahla markaasoo askartu ku soo wada meesha askartiyo ku soo wada waxa maraakiib soo galaya waxa ciidan waa yaabasa. marka dawladii marka waxay leeyihiin xaalku in la dejiyaan rabnaa laakiin xaalku sidoo ku degaya inta xaalku sida yahay. haddaba warkaas ayaa isaguna qaybta kore aan ku bilawnay. warka kale ku xiga ee soo kordhay waxa kamid ah xog la helay oo soo dustay ayaa waxay ka imaatay wasaaradda gaashaandhigga. hadda waxa loo bixiyay wasaaradda difaaca Mareykanka waaye wasaaradda dagaalka loo bixiyay wasaaratul harb ya leeyahay. Trump markuu yimid magaca laga bedelay. marka wasaaradda dagaalka Pentagonka ayaa waxay u gudbiyeen saraakiil Mareykan oo ciidanka ka tirsan Trump ay u gudbiyeen waxay yiraahdeen qorshaha dagaal midka ugu fiican ma ku sheegnay markaasuu yiri maxay tahay marka horeba
aayatullaahiga iyo wiilkiisa aan ka takhallusno ayagaan diiradda saaraynaa meelaha aan u malaynayna inay joogaan oo ay ku jiraan ayaan duqaynaynaa mas maxaa layidhi madaxaa laga dilaa aayatullaahi iyo wiilkiisaba haddii la dilo kuwa kale gacmay taageen waxaa qabaa saraakiil dagaalka haddaan galayno meesha aan ka bilowno madaxweyne taagay ninka aan raadsanayno ninka ha noqdo ninka haddaan dilno waddanka waa kala daadanayo qolo kale marka oo saraakiila oo la taliyaasha trama ayaa waxay leeyihin trama ku degdegi filinkan maxaa dhacay filinkan khatar kale u keeni karaa muxuu keeni karaa wuxuu keeni karaa waxay leeyihiin aayatullaahiga meeluu joogo maaloogi ama aayatullaahiga hadduu dhaawacmo maxaa dhacay wax allaale iyo wixii ay xarisul nimankan ilaalada kacaanka wax allaale iyo wixii ay ku difaaci karaan aayatullaahiga nafta agdhigaayeen nimankaa farisiyiina layidhaha niman naxama ah hogaamiyadu waa u dhimanaya aayatullaahi waa meeshaan wax caadiya maka ah marka sheekada waa sii qasmaysaa yidhahdeen marka mar walba meel naar meel qabow male ma maqash aayatullaahiga aad ama ha aadin meel qabow male meeshaan marba haddaa meeshan gasho ayaguna waxay jugta ka gelin karaana ka gelinayan marka ninkii dhowr doorashaa loo keenay miiskay u saaran yihiin amarka bixi sidan waxaa loo sameeya dhehe taagiyiin ciidanka meesha waa ku jactadnay marka meesha wareeraa taagan haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyay arrinkaa laga qoray jiradda ra'yul yowm waxay leedahay khamane iyo wiilkiisa ayaa waxau noqon doonaa bartilmaameedka maraykanka marka ugu horeeya oo ay weerarayaan iiraan warkan waxaa soo heshay jiradda la yidhaahdo axios ee maraykanka laga leeyahay waxayna daboolka ka qaaday tafaasiil cusub oo ku saabsan habka weerarka uu u dhacayo sida ay qorsheeyeen haddaba mowqican la yidhaahdo axios ayaa soo xiganaya mas-uuliyiin sare oo maraykan ah iyo rag sare oo militariga maraykanka ka tirsan waxayna sheegeen in trump loo soo bandhigay in marka hore laga takhaluso aayatullaahiga iyo wiilkiisa waa tahay marka xaaladdu halkaasay mare marka odaga isagaa laga rabaa inuu kala doorto weerarka iyo sida loo qaadayo iyo wixii oo dhan miiskiisa saaran yihiin lee warqadihii marka odaga isagaa laga rabaa si go-aan u gaari lahaa marka xaalku halkaasuu joogaa dhanka kale maraykanku waxay keeneen fikrad kale oo lagu biirin doono wadahadallada iiraan waxay tiri marnaba lagama hadlaayo sawaariiqdayda halkaasii dhig waxaa laga hadlaayo waa uraniumka iyo nuclear samaysane iyo waxaasaan ka hadlaynaa nuclearka annagu waa haysanaynaa waxayna si nabadgelya ayaan u isticmaalaynaa hub ma gaarsiinayno maraykankuna muxuu taagnaa wax nuclear oo laydinku arki karaba male waa laydinka shakiyey nuclear dhan waa joojinaysaan muddo 10 sano 20 sano camal heshiisaa la galaa nuclearka uraniumkana waddanka yaalaa rarta waddan kale u dhiibta war waxaasaa noola imaanin marka meeshaasay kala taagnayn hadda marka maraykanku waxay ku leeyihin xoogaa waxaan sameynay tanaasulaa sameynay haddaba tanaasulka ay sameeyeen aan aragno wadahadallada soo socda ay doonayaan in markaa lagu wada hadlo jiradda ra'yul yowm waxay leedahay washington waxay u ogolaanaysaa tahraan inay isticmaasho bacriminta uraniumka in yar oo macnaha oo aan gaarsiisnayn wax badan wax yar aa laydiin ogol yahay inta kale waa qaadaysaan meel kale geenaysaan ama wax kale laga sameynaa laakiin wax la awal waxay joogeen maba laydinku arki karo hadda waxay yidhahdeen wax yar aa laydiin ogolaanaa oo aad howlo yar warshado iyo u isticmaashaan iyo tamar iyo waxaan aa ka dhashataan saasaa loo isticmaala marka tanna waxaa leeyahay waa nidaam kale oo markaa maraykanka uu ku doonayo in iiraan uu markaa ku ogolaysiiyo laakiin iiraan waxaa leeyahay marnaba way diiday uraniumkeeda inay dibadda u qaado wax alla wixii ku saabsan hawshaa waxay leedahay annagu hawshaan anagaa qabsanayn hubna ma gaarsiinayno shaqo kalaan ka qabsanayna hay-adda atomigana waa isla ogolnahay markii la heshiiyo ha timaado ha fiiriso ha jeeggarayso laakiin
وحيانا كو أقولها كان واي أنا يقول عبره تمن يا ربع واي وسمين يعني وحيجا أنا إسكال العجة كلا بعض يوراني يوم كلا العقالي وفرديا مركا hawshaas oo iyadana Mareykanka damacsanaa leeyahay wararkaas ayaa ugu waaweynaa kuwii ka soo kordhay ilaa intii aynu kala maqneen xaaladda gobolka bariga dhexe kulli waa arki doonaa wixii warar soo kordha qadar xayisiisa kadib waxaan u gudbaynaa sheekada ku saabsan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa wixii ka dhacay saacadihii haddaba qaybtan waxaynu ku faahfaahinaynaa masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo Israa'iil ay cadaadis xoogan saarayso dadka muslimiinta ay masaajidka ku tukanaya bisha barakeysan ee Ramadaan salaadaha taraawiixda isha ay culays ku haysaa shalay waxa ku tukatay salaadii jimcaha waataan idin sheegay 80,000 oo qof ku tukatay 80,000 oo qof wax baxayba male luwi say meesha ugu tukadeen nin walba timirtiisa wixii soo soo qaatay isku bixis salaadii casirka maghribka ishaha taraawiixda aday ku taala qaar kala ku soo darsooma waliba 100,000 oo qof ay gaareen ayaguna ma qayb qorsheeyaan 10,000 oo qof inay ku tukato masaajidka rabaan marka sheekadii marka way ku qasantay 100,000 oo qof ayaa marka cidii soo gashay ma baxaysan ugu leeyahay masaajid nimankii way yaabayeen askar kasta keen wax kasta keen dadkii waa si xaluulanayaan waa socdaan masaajidka lagu jiraa marka xaalku halkaas uu maraya wararkii ugu dambeeyay marka Al Jazeera ayaa qortay saakay waxay leedahay sawirro la soo bandhigay 100,000 ayaa ku tukatay salaadii cisha iyo taraawiixda xalay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa haddaba warbixintu way sii socotay waxa leeyahay hay-adda arrimaha diinta islaamiga qaabilsan ee masaajidka gacanta ku haysa ayaa waxay sheegtay in 100,000 oo qof ay salaadii cisha iyo taraawiixda ay ku tukadeen masjidka Al-Aqsa iyadoo jimcihii ugu horeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan ay shalay ahayd hay-adda shalay waxay sheegtay 80,000 oo qof dad gaaraya inay salaada jimcaha iyaguna ku tukadeen masjidka oo markaa shalay ay salaada halkaa ku tukadeen way yaabeen marka nimankan yahuuda way yaabayeen waxay nimankan waxay leeyihiin annaga meesha waa cibaadaysanayna bil Ramadaan ku jirnaa meel naloo soo jiro ma naqaano meeshaas ku tukanayna ee faraha naga qaado may marka hadda ninkii meesha galaba ma soo baxayo 100,000 oo qof marka hadda xalay ku tukataa leeyahay shalay jimcaha ayna 80,000 ay ahay haddaba wararkaas ayaa ka soo kordhay